ciidamada wadooyinka ee magaalada Boorama ayaa howlgal xoogan ka bilaabay magaalada Boorama taasoo ay ku qabqabanayaan gaadiidka magaalada dhexmaraya ee aan bixin canshuurta lacageed ee dawladda hoose ee magaalada Boorama afaafka hore ee xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama waxaa saakay lagu arkay ciidamada traafikada oo qabqabanaya gaadiidka maraya wadadaasi waxayna weydiinayeen darawalada gaadiidkaasi inay haystaan warqadda canshuur bixinta dawladda hoose iyadoo gaadiidkii aan haysanna lagu xirayay gudaha xarunta dawladda hoose ilaa ay bixiyaan lacagta canshuurta gaadiidkaasi taliyaha ciidamada traafikada ee gobolada Awdal iyo Salal Axmed Daahir oo Somali Channel kula kulantay afaafka hore ee xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa falanqeeyay ujeedada hawshan ay wadaan wuxuuna yiri waxaan halkan isku nimid oo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ka shaqeynaya canshuurtii diiwaangelinta gaadiidka ee dawladda hoose oo aan maalmahanba ololaheedii ku jirnay si fiican oo socotaan ahaantii dadweynuhuna diyaar u yihiin canshuurta iska bixiyaan gaariga yarag marmarana qabanayna halkan xarunta dawladda hoose ku xiranayna si aan ugu bixiyo canshuurta xaq loogu lahaa ciidamada traafikada ayaa udub dhaxaad u ah hanaanka socod ee gaadiidka kala duwan waxayna mar walba ka shaqeeyaan sidii si nabadgelyo ah gaadiidka ay u kala gooshi lahaayeen Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama.